saad ogtiin toddobaadkii la soo dhaafay culimo Soomaaliyeed oo qaar kuwii ugu magac dheeraa iyo muuq dheeraa Soomaalida kamid ah ayaa dibadda iyo gudaha isaga yimid martiqaad sida la sheegay uu fidiyay maamulka Somaliland inay halka yimaadaan kullay wixii ay ka wada hadleen iyaga garanaya laakiin wixii warbaahinta loo soo bandhigay baanu ka hadlaynaa culimada timid markaa waxay ku soo beegmeen xilli xasaasiya oo wada garanaysaan waxa socday siraac legdan baa wuxuu ka dhex socday ama dood iskuul kiristanku wato la yiraahdo abaarso iskuul iyo jaamacaddiisa oo la yiraahdo barwaaqo maaqan abaar iyo barwaaqo meesha waxaa laga filayay inay ugu yeeraan maamulka halkaa jooga ee dimuqraadiyadda aad u buunbuuniya inay kitaabka ilaahay qaataan oo shareecada ku dhaqmaan la culimo waxay ku yihiin waa inay kitaabkii matalayaan iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inay maamulka ugu yeeri doonaan shareecada inuu qaato culimadu maxay soo kordhiyeen waa su'aal haddii intaan aanay ka hadal culimadu meeshii markay tageen dad badan baa u yimid aad baa loo soo dhaweeyay xataa airportku sheegay wadaadadii ka mid ah airportka sidii wasiirkii baa la ii soo dhaweeyay aad buu soo dhaweyntii ugu ammaaneen si fiican baa loo soo dhaweeyay cunto iyo cabitaan fiican baa la siiyey laakiin sheekadii wadaadadii maxay ku soo dhamaatay inay maamulkii dulmiga aan ku haysanay isaga u duceeyaan waxaa naftayda iyo dhammaan dadka ay maqlaya dibad iyo gudaba culimo iyo caamaba leena ilaahay aan u laabano sheekh hebel miyaa khaldama meesha anbiya ma dadkani malaa'igna ma aha macsuumna ma aha sheekhii markaan uu khaldamay hadduu shalay kula fiicnaa wuxuu ku khaldamay nin dhaalima oo kitaabkii la dagaalamaya oo kristan iyo qoom luut difaacaya inuu u duceeyo ugu duceeyo waliba cimri dherer iyo ku sabar mid baa wuxuu yiri mudana madaxweyne waa lagu dhibi doonaa qaar baa wax ka sheegi doona bud baa lagu la soo bixi doona ku sabar muxuu ku sabri ma dimuqraadiyadu ku sabri waxay soo kordhiyeen waa maxay in maamulkaasu saxiix yahay dadkii ka hor yimidna dhaalimiin yihiin wax kale maana soo kordhin dadkii uga hor yimid arrintan ay sameeyeen ee shareeca diidka ee qoomuluudka ee kiristaannimada socolumada waa gafeen marra waaxid si xoog leh u gafeen ilaahay u soo laabta ilaahay waa arkaa waxaad samayseen wuuna idin weydiinayaa dulmiga meesha ka jira iyo shirkiga meesha ka jira oo aad ka aamusteen xaqiiq waa idin weydiinaya markaati ka ahow inaan fariin u faray intaan kari karay iyaguna ama ha ogolaadaan ama hay soo eedeeyaan ama qaar badan oo moodayaba sheekh hebel baa sidaa dhihi qaar baa bari dhihi doona sheekh hebel waa khaldama nebi ma aha sheekh hebel macsuum ma aha waa khaldamaya annaguna waa u qirsanaa basharku inuu khaldamo laakiin kitmaanu alxaqiiqa masiibo weyn weeye in xaq jira oo kuu muuqda aad qariso dulmi jira oo kuu muuqda aad qariso laakiin ilaahay kitaabkiisa in lagu maamulana waan rabnaa sheekh quruxdu maxay taraysaa muraayadaha hadday dhalaalaan dhulkana shidaal lagala soo baxo diyaaradana aan ku soconno ilaahayna aan ku kufrino geeska afrika weli kitaabka ma jiro weli shareecadii alle cid ku maamushay male culimay alle ka baqo dadka runta u sheega oo ninkan ama waa hanuuni ama waa diidi laakiin ha ka qarinin qaala allahu qaala rasuulullahi waxay yidhaahdeen adinku maxaad reer muqdisho tihiin maamulka muqdisho u dhihi weydeen kitaabka qaata maalin walbaan dhahna war sooma dhahno haa inay yeelaan iyo inay ogolaadaan annaga awoodu ma lihin laakiin baarlamaankii madaxweynihii golayaashii baarlamaanka golayaashii wasiirada maalin walbaan la taaganahay ilaahay ka baqa waad dhimanaysaan allaad hortegaysaan waa laydin xisaabinayaa shareecada ilaahay qaata ku dhaqma soo roga kitaabka ilaahay waa ku khaldameen inay ka aamuseen waayahay haddaad tiraahdo shiikow anigu kitmaanulcilmi kama wado ee waxaan ka wadaa meeshii haddaan waxba ka bedeli karin codkayguna uusan waxba bedelayn inaan iska aamusaa iron haweenkii iyo carruurtii baa yidhi kitaabka alla qaatooy bannaanka la taagan meesha haweenkii iyo carruurtii la qaylinayaan adigii shiikaad ma sheegi kartid yaad u sheegi ma culimmadii madaxtooyada hargeysa lagu bartiqaaday baan oran karin mudana madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa dee wixii kaloo dhan soo qabatay kitaabka ilaahay qaado masaakiinta xirxiranna iska soo sidaa meeshan foosha xun ee cambaartaana naga demi ma dhihi karin walba adduunkan xoog leh maanta oo awood leh
oo sumcad leh waxaad tahayba go' baad ka qaadanaysaa qabri baad gelaysaa qabri amaama allaahi baad istaagaysaa adoo xaqiira daciifa waxba aan awoodin waxba aan inkiri karin maskiina in lagu naxariisto ninka odayga Hargeysa maamula iyo qolyaha kale Muqdisho maamula iyo kuwa laanlaanada la baxay Soomaalida maamula dhammaantood Ilaahay ka baqa waad dhimanaysaa haddii 50 sano dambe sii noolaatana Ilaahay baana hortagaysaan qabri baad galaysaan fursad baad haysataan wali aad ku toobad keentaan fursaddu waa intaad nooshahay Ilaahay u soo laabta rabbul aalamiin u soo laabta rabbul aalamiin u soo laabta Ilaahay u toobad keena reer Hargeysa waxaan oran lahaa shacabku abaarsa waa dumin kartaan adinkoon maamulba u istaagin dhagax iyo ul baad ku kala cayrin kartaan makhnuudiinta kristanka meesha isugu yimid waanad u doodi kartaan ninka la iska dulminayo fursad buu haystaa waxaan leenahay imisa nin quwad badan oo ka xoog badan caalamka soo martay imisa soo maray Adolf Hitler Joseph Stalin Jamal Abdel Nasser General Mohammed Siad Barre Habib Bourguiba ninkii la oran jiray Saddam Hussein ragii waaweynaa ee hantida iyo awoodda lahaa Franklin Roosevelt Churchill waa dhinteen kulli waa tageen aakhiray aadan adna waa tagaysaa adna waan tagayaa adna dadkoo dhan waa wada tagayaan بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال إن شاء الله تعالى خميستنا وحن ربائنا كذا هذلو مؤتمر كيام الشركي وينا علماء الصومالي وتضبات كده ويتكو قبصدين مقالة هرقيسة محاكا صوبحي محوس السوكر ديي ومهم arrintan in laga hadlo wacyiga waqtigeedana waa la joogaa sidaad ogtiin toddobaadkii hadda la soo dhaafay culimo Soomaaliyeed oo qaar kuwii ugu magac dheeraa iyo muuq dheeraa Soomaalida ka mid ah ayaa dibadda iyo gudahaba isaga yimid martiqaad sida la sheegay uu fidiyay maamulka Somaliland inay halkaa yimaadaan kolley wixii ay ka wada hadleen iyaga garanaya laakiin wixii warbaahinta loo soo bandhigay baanu ka hadlaynaa culimada timid markaa waxay ku soo beegmeen xilli xasaasiya oo wada garanaysaan waxa socday siraac legdan baa wuxuu ka dhex socday ama dood iskuul kristanku wato la yiraahdo abaarso iskuul iyo jaamacaddiisa oo la yiraahdo barwaaqo maaqan abaar iyo barwaaqo meesha isugu keeneen iyo maamulkii halkaa ka talinaya oo dhinac wada ah iyo wadaadda ka soo horjeeda oo ugu caansan yahay ninka hadda la xiray dhalinyarada Coldoon doodaas oo socota oo waliba ninkii ka soo horjeestay Coldoon oo la xiray ayay wadaadaduna yimaadeen shalo kale ama daraado kale markii isaga la xiray ayaa mu'tamarkiina furmay wadaadda caan oo badan oo Soomaaliyeed filayo ururka al-i'tisaam iyo tabliiq inay isugu jiraan maxaa laga filayay dadweynuhu maxay ka filayeen dadkii ayagu garanaya oo malaynaya baab gaar ah dadweynuhu waxay ka filayeen haddana ay qaar badan ku hongoobeen baan rabaa inaan taataabto marka koowaad waxaa laga filayay inay ugu yeeraan maamulka halkaa jooga ee dimuqraadiyadda aad u buunbuuniya inay kitaabka Ilaahay qaataan oo shareecada ku dhaqmaan la culimo waxay ku yihiin waa inay kitaabkii matalayaan iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inay maamulka ugu yeeri doonaan shareecada inuu qaato koow midda labaad inay ka hadli doonaan shirkiga qabuuriga ee ka jira dhulkaas oo ugu caansan yahay aw barkhadle oo duleedka magaalada Hargeysa oo boqolaal ama kumanaan dad ay ku aafaysan yihiin maalin walba u yeertaan wax u gowracaan magan galaan maadaama mu'tamar weyn oo Ilaahay baa weyn yani aad u ballaaran oo culumada u yimid meeshii inay shirkiga inkiraan
taana ma dhicin sababtana waan tataaban doonaa midda saddexaad waxaa kaloo laga filayay inay yidhaahdaan waa in iskuulkan abaars dowladdu ay xirtaa ama si kor ha ugu sheegaan ama si hoose ha ugu sheegaan iskuul kiristaannimo iyo qoomuluudnimo laga faafinayo oo baraha bulshada yaalloon qarsoonayn inay dadka inay maamulka kala hadlaan in la xiro maadaama maamulku marti qaaday oo la dhegaysanayo dad masmuuciin ay yihiin taasina ma dhicin sida muuqata wixii hoos loo yirina aad baan u baadigoobnay weli ma hayno wax hoos loo sheegay midda afraad inay kala taliyaan oo yidhahdeen soo daaya nimankan ka qayliyey waxan ee micnaha yidhi shareecada lagu dhaqmo ee yidhi meeshan qoomuluudka iyo kiristanka lagu faafiyo ha la yska qabto nimanka saasood xirteenna soo sii daaya oo ugu horeeyo cabdilmaalik coldoon iyo wadaad kale ayaa maaragtay caana iyaguna intiiba ma dhicin afartaa arrimoodba ma dhicin inay shirkiga qabuuraha ka digaan oo min yaroowe burco ilaa iyo meesha la yidhaahdo duleedka hargeysa ilaa gebile iyo arabsiyo laga helo inay si culum ahaana uga digaan bilcagsi waxay culummadu yidhahdeen waan arki doonaa kow inay shareecada islaamka ugu yeeraan qoladan marti qaaday laba wasiir baa shirka ka qayb galoo ku jiray wasiirka diinta iyo ooqaafta iyo wasiirkii arrimaha gudaha idan wuxuu ahaa shir dowladdu maamulaysuuba ahaa oo lug weyn ay ku leeyihiin waa dowladda meeshaas somaliland tan saddexaad taana sharcigan waa kalamaanay hadal midda saddexaad oo la filayo hadda aan ka hadlayno waa inuu xarumaha dhaqanka xun la xiro xarunta dhaqanka hargeysa iskuulka abaarsa iyo jaamacaddiisa oo intuba carruurtu garanayaan waxay faafinayaan qoomuluudnimo iyo kiristaannimo bannaanka taallaa oo nin ingiriisa iskale abaarsa school nin waxaan dhihi lahaa maraykana oo isaga laftigiisa uu yahay qoomuluud nin la qabo wey balaayaa qabtee ibliis ah inay kaasoo kala daawadaan may ahayn marka in culummada waxaas ka digaan waa la filayay kolley dadweynuhu taasuu guuxooda u badnaa soomaali meelay joogtaba maadaama shir weyn oo culimo waaweyni joogto mu'tamar halkaa lagu qabtay iyo inay ka hadlaan dadkan dulmiga lagu xirtay ee intay ka dhiidhiyeen masaladan keliya gudaha lagu guray weliba ay xor yihiin kuwa kiristanka ah bannaankay joogaan haweenaydii joy isa baa la yidhaha kiristaannimada faafinaysay ninkii qoomuluudka ahaa ee maraykanka ahaa haddayba joogaan qaarkood inay ka baxeen baa la ii sheegay hargeysa oo dhulkooda si ku meel gaara ugu noqdeen maadaama dadweynihii ay kaceen oo caroodeen laakiin macallimiintoodii iyo ardadoodii iyo hawshoodii waa socotaa kuwaas waa xor kii ka qayliyeyna guduhu ku jira culummadiina waa shiraysaa kamana aanay hadal soo arrin foolxun maaha in lagaa yeelo iyo in lagaa diido waa arrin gaar ah oo culummadu awood uma leh ay amar ku siiyaan muuse bixi war sidan yeel miyay dhihi karaan maya laakiin tala bixin bay iyagaa asagaaba marti qaaday tala bixin bay ugu tegi karaan okay intaa haddaanay dhicin marka oo meelihii faaxishada in la xirana aanay kala hadal haddii la is yidhaahdo maxaa culummada keliya wadaadku ku eedayaa muqdishoba waxaa laga helaa meelo fawaaxisho iyo qurun iyo haween lisbiyan iyo qoomuluud baa laga helaa nacam laakiin culummadu way ka qayliyaan kow laakiin culimmadan kale joogta magaalada culimmadan kale ee magaalada joogta oo ilaahay baa mahadle fara badan ayaa xataa waxay ka qayliyeen markii la yidhi waxaa laydin samaynayaa gabadhu ay keentay baarlamaankiiba waxay keentay xeerkii la ohan jiray xeerkii bahalkii maxaa la yidhaahdaa xeerkii jinsiga miyay ohan jireen kii qoomuluudnimada lagu dalbanayey baarlamaan gender miyuu ahaa gender ambalance markii la keenayey qabowga ma rabaanay marka ayay ka qayliyeen xataa suufiye qabuuriyaha ka qayliye iska dhaaf dad fiican oo xoogaa macquuleh qabuuriyiin ahlu shirkiga xataa ka qayliyey maxaa yeele waa faaxisho foolxun marka reer muqdisho waa hadlaan waxaan rajaynayey nimanka martida loo ahaa reer hargeysa wadaadada iyo kuwa u yimidba inay arrimahaas ka hadlaan laakiin bilcagsi maxay ka hadleen maxayse soo kordhiyeen dhegaysta
culummadu maxay soo kordhiyeen waa su'aal haddii intaan aanay ka hadal culummadu meeshii markay tageen dad badan baa u yimid aad baa loo soo dhoweeyey xataa eeraboodku sheegay wadaadadii ka mid a eeraboodka sidii wasiirkii baa la ii soo dhoweeyey bir aad buu soo dhoweyntii ugu ammaaneen si fiican baa loo soo dhoweeyey cunto iyo cabitaan fiican baa la siiyey laakiin sheekadii wadaadadii maxay ku soo dhammaatay inay maamulkii dulmiga aan ku haysanay isaga u duceeyaan abaarso ilaa waxay noqotay cambaar hargeysa ku taalle meesha naga foge mayse dhihi karin way dhihi karaan laakiin in xafiladii lagu soo gabagabeeyo shiikh walba mar inuu taarikh nololeedkiisa ka sheekeeyo hargeysa iyo amnigeeda ka sheekeeyo barwaaqada meesha ka jirta ka sheekeeyo waa cover culimmadii waxay noqdeen lagu qariyey dhibkii meesha ka jiray meesha aad shiikhow fadhidood ku shirayso dabaqa sare hoostiisa nin baa ku xiran oo wuxuu u xiran yahay waa maxay ilaahay kitaabkiisa ha la sare mariyo ayuu u xiran yahay korna adaa ku shirayo oo cabitaan qabow lagu dhigay wasiiradii xirayna kula fadhiyaana bal ka war miyaanay damiirka insaanka iyo damiirka muslimka iyo damiirka caaqilka aan arrintaas ugubayn coldoon isma naqaan qaraabana ma nihin weligeena lama hadal laakiin waxa uu sheegay waa sax kitaabka ilaahay ha la qaato ma sax waa mase waa khalad sax weeye sax weeye waa ku ayidsanahay wax kaloon ka aqaanana wallaahi ma jiraan aan ahayn kitaabka ilaahay ha la qaatuu yidhi waa arrin fiican adeer cid walba oo adduunkan soo martayba shiikh taaquud walba wuxuu leeyahay culamo u fadhida u fatwoota adduunyaha ka raacin ilaahay ka baq anigu ururkaa tahay ma danaynayo een magacaaga iyo qabiilkaana muhiim maaha laakiin waxaa muhiima war ilaahay kitaabkiisa aan qaadanno soomaaliya ilaahay aan u toobad keenno inaan badbaadno adduun iyo aakhiraba kulligeen waanu doonaynaa badbaadaduna meel kale kuma jirto meeshan la adkeeyey ee ninkii ka hadlaa xabsi ku mudanayo ee ninkii ka hadlaa lagu dilayo ee gaalo dhan ay necab tahay badbaadadu halkaasa ku jirta oo waa maxay kitaab allah wa sunnata nabiyi calayhi salaatu wasalaam cod dheer baanu ku leenahay kitaab allah wa sunnata nabiyi sala allahu calayh wasalam ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebigaa badbaadadu ku jirta yaan la qarinin ummadda ha loo sheego aayaddaas qaybteeda dambe alla wuxuu yidhi yacni kuwaasaas samaynayo weliba aqoonta leh famaa asbarahum cala annaar subxaana allah naar u adkaysi badana ninka asagoo maanta og jariimada meeshaa ka jirta ka aamusay nebiguna yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man su'ila can cilmin fakatamah uljima yowma alqiyaamati bilijaami الnaar xakamo naareed baa afka loo gelinaya ninka ka aamusay haddaad tiraa war kitaabka ilaahay ku dhaqan ma xagjirnima xagjirnimada horta maxay tahay laftigeeda su-aalaba ilaa qofkii yidhahda allaha loo laabto kitaabkiisa ha la qaato waa xagjir iska ilaale xagjir haddii laga wado kitaabka dhankiisu jiraa sunnada dhankeedu jiraa sax anaa xagjirka koowaada waan ku faraxsanahayba xagjir haddii laga wado kitaab alluu rabaa sunno nebi maxamed buu raacsan yahay waa asal raac maaba sharafe war miyaanan dhinaca kitaabka jirin mase dhexdaan fadhinaa kitaab iyo baybal baan udhaxaynaa ma kitaab iyo dimuqraadiyad baan udhaxaynaa dhinaca kitaabka ma jirnaa mase ma jirno kulligeena xag jir baana ma nahay xagga aan jirnaa waa dhankee allahu akbar dhanka kitaabkaanu jirnaa dhanka sunnada nebi maxamed baanu jirnaa waanan ku faraxsannahay shaaa man shaaa wa abaa man abaa kii doona ha ogolaado kii doonaana ha diido waan ku faraxsannahay inaan nebi maxamed raacno waan ku faraxsannahay inaan u qaylinayno kelimatullaahi hiya alculyaa war kelimada allah ha sare marto war ilaahay kitaabkiisa ha lagu dhaqmo war allah ha loo laabto ilaahay baa odhanaya ittabicuu axsana maa unzila ilaykum min rabbikum raaca kii wanaagsana xagga rabbigii laga soo dejiyey meel kale alla wuxuu leeyahay afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun ma xukun jaahiliya ay doonayaan yaa ilaahay ka xukun wanaagsan ciddii xaqa yaqiininaysa ilaahay baa rabbigeena khaaliqeenna ah mushariceenna ah kaan adeecsannahay ah macbuudkeenna aan u sujuudayno isu dullaynayno magan gelaynaa isaga ah waxaa kuu soo haray dadweynaha waqooyi degan qaar baa laga yaabay inay u qaataan waqooyi dhan aan weerarayna maya cid kastoo kitaab ka soo horjeeda ama waqooyi ha joogo
ama koonfur ha joogo ama bayland iyo jubbaland ha joogo meeshuu joogo kitaab ilaahay uu ku diidayba waxaan leenahay ahlulbaatil baat kaafir billaahi alcadiim weeye cid kasta oo diidda ilaahay iyo rasuulkiisa maaha waqooyi faarax gaarku maaha kuwii ogol ama waqooyi ha joogo ama koonfur ha joogana waa muslim ilaahay u hoggaansan war soo arrintu ma isku khaldan tahay maya ninkii dimuqraadiyad doontay ama codin maxaa la yidhahdaa common law qaatay ama international ideology system qaatay ama penal court qaatay ama mayd u yeertay magan gale u gowracay awowgiis ama sheekh dhintay magan gale u yeertay kaasuu nabi maxamed diintiisa shaqo kuma leh ninkii difaacaya oo odhanaya waa culumo waddadu ku taagan yahay ninka saa samaynaya ama dimuqraadiyadda ku qanacsan ama shirki ku qanacsan qabri ku qanacsan ninkii watow oo le cilmi aanu ku haynaa war bannaanka imow haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin ma haysaan lamana helayo waa inaan ku kufrinaa cid kasta oon ilaahay ateecsanayn si aanu u helno jannada yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalintan awlaad iyo maal aanay waxba tarayn ilaa qofkii ula taga alla mooye qalbi nabadgalay shirki ka nabadgalay taaquud ku kufriyey xasad iyo inkir xaqa inkiro ka nabadgalay nifaaq ka nabadgalay ilaahay baan ka baryaynaa waddadii xaqaheeda ambiyadii iyo saxaabadii mareen ilaahay inuu nagu toosiyo aamiin dhaha rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma aciza alislaama walmuslimiin waadila ashirka walmushrikiin acdaa'aka acdaa diin ya da aljalaali waalikraam allahuma ajcal kalimataka hiya alculya wa kalimata alkufri hiya asufla ya da aljalaali waalikraam ya qawiyun ya casiiz لا معقب لحكمك ولا راد لفضلك لا معقب لحكمك ولا راد لفضلك يا الله يا قوي يا عزيز يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا ذا الجلال والإكرام إله نلكنا هذا اسكله أدومنا هذا اسكله أنا أديك أنا له إله نهنوني إله ودد حقا نقول توسي إله نلك يددك نبضنا غيل إله برواقا نسي إله إيمان يهنون نسي إله ودار الله كتا نقول توسي إله قيادة أمد عالم كهكته أو حقا كهكا وانا لا يسعدون كودن سومالي هوسبا الله إيغا إله كوا كر الله إيغا نغيل إله كوا كر الله إيغا نغيل إله كوا دين تادا كتوسا نغيل إله دين تادا وحكو عزيسا إيضا وحكو دوليسا كوا دين تادا كدغي أو كو عزيسا نغيل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام إله نغا أقبل اللهم أنت السميع العليم وأنت على كل شيء قدير نسألك بقدرتك على الخلق يا ذا الجلال والإكرام وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم.